Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Subax wanaagsan, galab wanaagsan, wax kasta ay ku tahay wanaagsan. Kusoo dhawow channelka Surbiyaan ee khiyaarteeda sharafta leh. Maanta waa maalin waxaa idinla qaybsanayaa qadadeena qaabkii aan u kariyey. Maasha Allah, tabaarakallah. Waxaana arkaysiin waa bariis, maasha Allah, biryani rice. Sidii qaabkii aan u kariyey, qaab yaroo fudud oo macaan ayaan u kariyey. Maasha Allah, tabaarakallah. Marka waxaan idinla qaybsanayaa qadadeena. Halkan waxaan ku haystaa waxyaabihii mataqaanaa aan ka sameyn lahaa. Xasalka ku jira waa digaaga waa chicken. Halkan waxaa iiga soo shiidan kamsar caleen, toon iyo yaanyo ayaan ku shiitay meeshii aad arkayseen. Kadibna waxaan sameynayaa inaan isku dardaro insha Allah tacaala. qaabka aan u sameynayana ka faa'iideyso oo daawo insha Allah. kole aniga wax dheer ma sameynaa, wax badan ma sameynaa, si yar oo fudud baan rabaa inaan u sameeyo. Heel iyo qorofal iyo waxyaabahaas aan kusoo darsaday maasha Allah. waxaan rabaa inaan si yar oo mataqaanaa easy aan u karsado. xawaajigan aan ku darsanayo biryani masala waa xawaajka loogu talagalay cuntooyinka aan maaragtay masalaha iyo mataqaanaa biryani iyo waxyaabahaas. waa xawaaj badan oo isku jira meel walbaad ka heli kartaa. marka xawaajkaasaan qaadiye bar kusoo darsaday. kadib waxaan ku darsanayaa qudaarta dhan hal mar ayaan ku darsanaa haddii ilaahay yiraahdo. maxaa yeelay chickenka biyo ayaan wax yar xoogaa kusoo kariyey oo mataqaana xoogaa yar biyo karsan yahay, laakiin waxaan u baahanaa inaan kariyo waxaa waaye qudaarta. waxa ayna tusayay celery ayaa la dhahaa. waa geed caraf badan isaguna maasha Allah, waa aad iyo aad u caraf badan. kadib waa kaasaa waa isku soo wada daray qudaartana. waxaan rabaa yaanyadii ayaan kusoo darsanaya iyo toontii iyo waxyaabihii isugu geshiidnaa. kadib waxaan rabaa alaabtan inay cabaar mataqaanaa dee sida caadadaaba iisoo bislaato. marka halkaasaan daboolaa waan ka tagayaa. digsi ayaa dabka ii saaran, waxaan kusoo shubanayaa biyo kulul. waxaan aan ku ridanayaa waxaa waaye leaf. waxaan karsanayaa bariiska intii mataqaanaa way karsamayso suugada. bariiska ayaan dhinacan hal mar biyo hof kusoo siisanaya. waxaan ku rida hal qaado oo subag ah iyo xawaajiga dhuudhuuban oo xawaajigeena mataqaanaa qaaca waxba lala arko waa kaamirada qaaca qarisay. marka xawaaji dhuudhuubkeena aan tumin ayaan ku shubay cusbo intaasaan biyaha kusoo daray. kadibna waxaan kusoo darsanayaa bariiskii oo aan soo dhaqday oo meel cabaar iigu jiray. bariiska marka waxaan sameynayaa hal mar ayuu mataqaanaa biyahan uu huf iigu soo dhahayaa. kadibna waan ka sameeynayaa haddii ilaahay yiraahdo inaan wax badan aan kariyo ma u baahna. bariiska adiga 2 jeer hadduu saa usoo karo waan ka dejin doonaa biidnillah. suugadeeni ayaan usoo noqonay ayaduna maasha Allah tabaarakallah. hadda waxaa waaye qudaarteena wixii dhan waa isku burbureen. chickenkii ayaan kusoo darayaa ama digaaga lugulugaha ahaa. kadibna waxaan sameynaa iyagana cabaar ayaan isku sii qaleynayaa cusbadiisii maraq digaagiisii. waxaa ku daray oo kale huruud iyo xulbad yaraan ku daray caraf maasha Allah tabaarakallah. kadibna cabaar ayaan mataqaanaa isku sii maxaa la dhahayaa isku sii huurinayaa haddii ilaahay yiraahdo. mar dhow diyaar ayay ii noqonaysaa. waxaan rabaa inaan ku darsado haddii ilaahay yiraahdo waa raqay ama xamar aan biyo kusoo qasay soo miira fiig soo bixiyey. qof kasta oo garanaya. kadib dhadhankiisii wixiisaan dhadhaminaa. insha Allah dhanaanka wax yar igu yaraaday. waxaan ku darsanayaa hal xabo oo maraq digaaga haysatay ayaa isticmaali doontaa insha Allah tabaarakallah. walaalahayga waa kanaa. waxaan jeclaa wax kastoo mataqaanaa isdhahay waa laga faa'iideysanaya inaan mataqaanaa idin soo geliyo. qof kasta uu kari yaqaanaa suugo, qof kasta uu kari yaqaanaa qado. haddana waxaa laga yaabaa in la kala qaab duwan yahay. waxaa laga yaabaa inaad tahay hooyo caadsan, laakiin markaa aragtay anoo karsanaya aakaadi suugadeeda saas ayay diyaar iigu tahay. waxaan rabaa inaan shiisho basal ayaan warwareeg ugu soo jarjartay. waxaa waaye waxyaabaha waxa la isugu soo gudbinaya waxaa laga wadaa dhiirigelin iyo maxaa la dhahaye gabar maxaa la dhahaa deerto halkaas ka fadhiso inay tiraahdo reerkeyga qadaan oo kale maanta au kariyo. marka waa kaasaahe dhiirigelin hooyaan wadnaa maasha Allah. ilaa nala garab galo idinkana khayr Allah idin siiyo saa noo daawanaysiin. akhyaarteeda sharafta leh basasha waa taasaa. waa iisoo shiilantay. marka ani basasha aada uma gubo oo uma wadoomeeyo. dad qofba qaab ayuu u shiishaa. basasha waxaan jeclaa inay ii noqoto golden brown. saas inay ii noqoto ayaa aniga dooqeyga ah. marka waa kaasa waa kasoo wada guranaya insha Allah. meesha waa kasoo wada guranaa. kadib saliidii dabka waa ka damiyey laakiin way kulushaa. waxaan kusoo darsaday sabiib ama raisin.
sabiib ayaan kusoo darsaday. Sabiibka markii mataqaanaa aad cuntada ku daraysa ana waxaan jeclahay inaan mataqaanaa wax yar aan shiilo oo saliid yar kulul aan ku rido. waxay noqonaysaa dhadhan yar oo macaan oo kaala iska araga kuskus ay noqonaysaa, way soo boobodaysaa. waa u jeedin si usoo bislaanaysa usoo boobodaysa sidii saloolka camal. waxay noqonaysaa wax yar oo kuskuusan. marka aniga saliid kulul ayaan hal mar shab ku siiyaa, kadibna waa kaastaa had ready waaye. dabka mashidna saa inii sheegay waa kaastaa sabiibkii. yaa umaleynaa sabiib inuu yahay wuu burburtay. marka saana uga guranayaa kas wax badan ma u baahan, hal mar waxaan rabaa inay isaas iigu soo noqoto kaliya ayaan ka rabay. marka sabiibkii waa kaasaa, waa kasoo guranaa isagana saasuu noqday hadda arki kartaan. maasha allah tabaarakallah. hadda waa ka guranaa sabiibka basasha saa inii sheegay waa kasoo diyaarsaday. sabiibkana waa kasoo dhamaysanaya. hadda waxaan gaarnay waqtigii bariiska aan isku dhex dari lahayn suugada iyo bariiska. suugadeeni macaanka carafta waxaan ku yiri maasha allah tabaarakallah. ila wadaan siino siyaada intii aan haysanina sii. waxaan sameynayaa suuga yar hoos u dhigay si arkaysin bariis ayaan dusha ka saarayaa insha allah. maasha allah tabaarakallah. waa qadayro waxaan ku iri caadi aan ahayn yaa basal u dhaxaysiinaya. markaan bariiskii aan hore aan ku shubay basal iyo sabiib yar aan ku shubaya. haddana suugada ayaan haddana xooga suuga ah ayaan ku shubayaa iyo chickenkii wixii oo dhan. maasha allah tabaarakallah. waxaan rajaynayaa qadadan inaad soo tijaabin doontiin kana faa'iidi doontiin insha allah. sidaa yar fudud oo quruxda badan runtii aniga waxyaabo yar yar oo fudud baan iska jeclaa. waqti dheer wax loo taagan yahay ma jecli. waxaan jeclaa dhaqso inaan mataqaanaa wax yar oo dhadhan leh oo macaan oo maxaa la maasha allahna inaan maarta kasoo tuuro. saaran bariiskii baan dusha ka saaray. kadib waxaa u dambeysiinaya waa basal iyo sabiibkii. basashii iyo sabiibkii aan soo shiilanay ayaa ugu dambeysiinaya. kaale iska arag waa kaasaa maasha allah tabaarakallah. dhadhankiisana anaa inii dhadhamiyo waxaan ku dhahay familiga dhammaan waa laga hela maasha allah. waxaan ku darsanaya waxaa waaye waa sacfaraan. kalar alaala kalarkii markaas aad jecesha ama haysatay ayaa ku dari kartaa. ani sacfaraanka horta aad baan uga haystaa ma aqaane. kalarada waxaa kalarka aan ugu jeclaa haddii cunto wax lagu daraayo waa kalarka sacfaraanka ah. qof walba dooquu leeyahay soo maaha. ani kalarka cuntada bariiska lagu daraayo runtii kalarka le aad uma jecli. kalarka aan aadka u jeclahay waa sacfaraanka ama yellow egga ay dhahaan. kalarkaas ayaan aad u jeclaa maasha allah. quruxuuna ka dhigaa runtii. waa kaastaa bariiska saas kusoo baxay quruxda badan. waa huurinaynaa weli ma dhawa. dabka xoogaa yaraa loo gaabinaya waa la huurinaa insha allah. waa la isku dardara kaliya inta la isku dardara lama cunaayo laakiin waa huurinaynaa. marka waxaan rabaa inaan kusoo darsado inta daboolka saarin waa subagan sis ugu wareejinayaa. subag alaala subagii markaa aa haysatada isticmaali kartaa. subag la-aad waa subaga isticmaalayo saana ugu wareejinaya wax yar hareeraha dhan. kadibna waxaan sameynaa alumi aan soo qaadanaya ama bacda afka loogu xiro. afka ayaan ugu xirayaa. ovenka waa gelin kartaa korna waa kursaa. ani ovenka maanta ma gelinayo insha allah marka la oven gelin doona. hadda kan waxaan sameynaa meeshiisa igu huuraya. daboolka aan dhab ku siinaya. dabkaan u gaabinaya muddo 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo kadib waa soo diyaariyay. maasha allah tabaarakallah. kaale iska arag waaye waa kaasaa qadadeeni maanta qurux maasha allah iyo dhadhan bariiska ay muhiimadeenu ahayd. laakiin waa kana waa soo diyaarsanay. qadadii baa soo diyaariyay. hadda waxaa waaye alla cuna leh dhiman maaho. waa kaasaa bariiska saas kusoo baxay. kaale iska arag maasha allah tabaarakallah. ilaa wadaan siiyeenoo siyaada intii aan haysanina sii. marka khiyaarteeda sharafta leh maanta waxaan idinla qaybsanayay bariis biryani aad iyo aad u fudud aadna u macaan. hadda intii cuntay mataqaanaa dhadhankiisa garanaysay anaa inii soo niyeystay khiyaarteeda sharafta leh. waa kaasaa qadadeeni maanta aadka u quruxda badnayd aan soo diyaarsanay. walaalaha cusub ee igu soo biro dhammaan welkamaa idin leeyahay. kuwa idinla joogana nala jooga ayaan leeyahay. please haddii ay tahay markii kugu warsaa naga ilaawin subscribe-ka times ama comment. assalaamu calaykum.